ku jira sida maamadaas oo kale hadda ha noqon dad badanna waan arkay noocaas oo kale ah intaan goobaha caafimaadka joogay marka waa fariin aad u muhiim adiguna ka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan iyo muuqaal cusub oo walaalkii maxamed cabdilaahi halkaad naga daawanaysaan waa Dhuxul Media dad nagu cusub tahay nagu soo dhawow naguna soo biir farxad iyo dhiirigelin bay noo tahay ra'yigaagana hoos noogu reeb iyo mowduucyada mar walba xiiseynaysid iyo haddaad rabtid barnaamij aadno doonaysid inaad bulshada la wadaagtid inaanu ka hadalno insha allahu tacaala muuqaalkaygan koobani kolley waxa uu ku daba socdaa ama la xidhiidhaa fariimaheennii caafimaadka ahaa xaggi wacyigelinta barnaamijkan ugu macdarnahay xogta caafimaadka marka soo dhawow insha allahu tacaala arrin yari ka fursan weyday inaan ka hadlabaan maanta dhacdaan usoo joogayna waan idinla wadaagaya insha allahu tacaala aada iyo aad baanad u mahadsantihiin fariinteydani maanta waxay tahay aada iyo aadna way ii gubtay oo dee inaan ka aamusa moogtay maaha waxyaalaha aan arkan inaan idinla wadaago ama wacyigelin ha noqoto ama caafimaadna waa waajib inaka ina wada saaran dhammaanteenba maanta barnaamijkan idinla wadaagaya waxay tahay daawada sida aada la socotidba ama waxaa la dhaha draaga laisku daaweeyo waxaa la dhaha waa seef laba af leh dhinacii loo qaadaba waxbay u goynaysaa waana sun weeyaan marka daawada aada maqlaysid ee wax lagu daaweeyo dhibaatiina kuu keeni karaysaa ha noqoto xabad paracetamol aada cuntidba dhawaanahanba waxay nagu soo noqnoqonayay weliba khaasatan dad war hayno haddaad ku nooshaana kolley waad aragtay baan u malaynayaa in dadku ay dawooyinka iska iibsadaan sida dawooyin baa jira leedahay off counter oo aad iska iibsan kara sida kaarjibinta laakiin hadda waxaa soo baxay inay dadku daawooyinka si ay iska iibsadaan ayagu intuu farmasiga tago ama asagoo isu qoro waxaad maqlaysaa dawo qalajiya baan u baahanahay tii noocaasaan u baahanahay dawooyin aan loo baahnayn inaad dhakhtar maahaan weliba uu tashi iyo xaaladaada ku qora maahaan aan loo baahnayn in la iibsadana dadku aada bay u iibsanayeen kadibna wuxuu sameynaya inuu jirkaagi la qabsado jirkaaga markuu la qabsadana hadhowtu markaad dhakhtar u tagtid kama daweysmaysa xanuunkii maalin walbaad arkaysa qof dhakhtar kusii socda oo xanuuno yaryar oo fudud oo hayaan daawada markuu soo qaatan uu ka odhanaya waxba iima tarin taasi waxaa keenaysa waa dawooyinkan aynu iska qaadanayno waxaan la kulmay adigu halkan magaaladana jooga dad badan baa caafimaad u yimaada oo meelaha dibadda ay wadankiiba ka yimaada oo soomaaliyeed dadkaasi dhacdadan la kulmay hadda wiigan ay ahayd waxay ahayd maamo kamid a hooyooyinkan baa dhakhtarka tagtay waxaa lagu yihi xanuun kale hadda kuma hayo daawo aada isticmaashay ama daawo aan lagu qorin baad isticmaashay ama xanuunkan ku haya daawadeedii baada isticmaalin sidoo kale xanuunkan aanu kaa helnay haddaanu kaana daaweyn lahayn ayadana daawooyinkii loo isticmaali lahaa horaad u isticmaashay marka waad la qabsatay resistance wax la dhahaa baa jira inta badan waad maqli jirteen TB-da oo qofka hadduu daawooyinka kala gooyo ama uu ka baxsado ama si wacan uusan u isticmaalin oo la dhaho uu la qabsaday daawooyinka TB-da oo mid ka khatarsan TB-dii hadhow ay kusoo baxdo uusan ka daweysmayn qofku qaadsiiyana ay adag tahay in laga daweeyo si easy-ana uu qaadi karayo marka maamadii waxaa loo sheegay arrin qiiro la in lagu yidhi horta bal daawooyinkana jirkaagaan ka saarno dhibaatada kale ku haysatana waxay tahay daawooyin baad isticmaashay xanuunka ku hay loo baahnaa ama maad isticmaalay ama horaad iskaga isticmaali jirtay marka daawadina waxba kuu qaban mayso dee waxay gashay xaalad kale iyo in gurmad kale loo sameeyo daawooyinka laga bedelo taasina waxay dhibka keenaysaa daawooyin ha iska isticmaalin waxaad ka qaadaysaa beer xanuun keliya xanuun xaggii maskaxdaadii baa dhibaatay u keenaysaa daawadan yaraad iska liqaysa daawadu waa sun laakiin ilaahay ciddu dawo ugu soo dhiibay ku daweysmayto sidii saxda ahaana marka dhakhtar loo qoro ama qofkii professionaalka ahaa uu qoro marka waxaan dhammaan idinkula dardaarmayaa fadlan ha iska iibsanin ilaa dhakhtar u tagtid lagu baadho daawo ha iska iibsanin kadibna cidda u heelka ahayd weydii ama dhakhtar ama kalkaaliye caafimaad intaad u tagtid xanuunkaaga marka la baadho ama sida lagu hayo uga waran haddii madaxu ka xanuunaya xitaa hadda dhib badan baa soo koray welwel badan safar dheer bay soo gashay qarash badan baa ka baxay haddana dhibkaasaa taala dalkii laba dhibaato haysad in dadka daawooyinka la iska siiyo iyo inaan daawo tayo leh labada la siinba ilaahay horta wuu inaga badbaadiyo daawooyinka tayada leh hadday ahaan lahaayeen dadku aad bay ugu dhamaan lahaayeen marka problemka koowaad wuxuu in daawo
aan teedi ahayn lagu siiyo iyo inaad daawo iska qaadataan cidi kuu qorin kadibna xanuunkaagii aada la qabsatid marka daawo u baahatid aan waxba laga qaban karayn. marka caafimaadkaagu aduu gacmahaaga ku jiraa sida maamadaas oo kale hadda ha noqon. dad badanna waa arkay noocaas oo kale ah intaan goobaha caafimaadka joogay. marka walaal waa fariin aada u muhiima, adiguna ka digtoonow. haddii cid noocaas taqaanana u sheeg, barnaamijkan hadduu anfacayana la wadaag, adiguna mas-uuliyadda qaado. dadkan goobaha caafimaadka dalka haystana ha taxadareen. wixii hadda business buu noqday, businesska ciddii ay tahay shaqadooda ha ka shaqeeyeen ee mas-uuliyadda qaadi karaysa. wixii maanta lacag unbaa laga sameynayaa, xag ilaahayna u ilaali, ummadaadina ilaali, mas-uuliyad baa ku saaran. aada ma wallaahi la ooyo waxaan dee loo qaban karayo ma jirto inaynu fariinta usoo gudbino, bal dad kale ay sii gaadho inaan sameyno. meel walba dalkii tagtidna maanta dhibaatadaasaa ka taagan oo qofkii problem lacagtiisii iyo naftiisii intii oo dhanba dhib baa usoo gaadhay. marka dawooyinkana isticmaalaysa walaal iska jooji, asxaabtaada iyo ehelkaagana uga dig, mas-uuliyaddana aynu wada qaadno. dadka gacanta ku haya daawooyinkana businesska ka dayanayana ilaahana ka baqeen, ummadoodana ha u tureen. lacag waad ka helaysaa, waa business furan, laakiin mas-uuliyad ha lagu daro. aada ayaa arrintaas ii qiiro gelinaysaa, adigana ay ku qiiro gelinaysaa. kaba soo qaad inay walaasha ku dhacday, hooyada ku dhacday, adiga ay ku haysato, beri lagu yiri waxba laguma qaban karayo. mar walba lacag ba lagaa qaadaya, laakiin lacagtaada ha dhowto iyo qoomamo kugu noqonin had maxaan sidaa u sameyn waayey ama talada u raaci waayey. marka fariinteeda caafimaad waxaa leeyahay wada qaadana, fariintaas inuu wadana gaadhsiino bulshadeena, maskaxdeena iyo caqligeeda aynu dhisno, korna usii qaadno, mas-uuliyadna hala wada qaato. dalkiina wuu burburay, dalkiiyo dadku iya iska keen raacin. aada iyo aad baad u mahadsantihi. muuqaalka idinkuma dheeraynayo, inaba dadka wax ka faa'iidina, asxaabtuna la wadaag, waajibkuna wuu ku saaran yahay walaal dhammaanteenba aynu ka digtoonaano. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.